waxaan halkan idinku soo gudbinayaa 7 goobood oo aan dadka la ogolayn inay booqdaan ayna ugu wacan tahay khatar amni arrimo xasaasiya dana guud iyo waxyaabo kale oo gaara goobta koobaad ee ka caagan dalxiiska waa jasiiradda masaska ee dalka Brazil jasiiradda ilaa hadda Guimda Grand ee dalka Brazil waxa ay ka mid tahay goobaha caanka ah ee aan dadka la ogolayn inay booqdaan waa goob halis ah oo ay adag tahay in qofkii tagaa uu ka soo noqonayo isagoo bad qaba jasiiraddan ayaa waxa ku nool masaska ugu badan adduunka inta la og yahay waxaana lagu qiyaasaa in mitir walba oo dhulka jasiiraddaas uu jiifo mas waxaana la sheegay inay yihiin masaska marka uu qofku arko kuwa argagax gelin kara waxyeelayna kara dadka bini'aadamka masaska ku nool jasiiradda ilaahda waxa lagu tilmaamay inay yihiin masaska adduunka kuwooda ugu khatarta badan waxaana ka mid ah masaska nooca casaanka ah ee waabayda tuura dowladda Brazil ayaa xidhay jasiiraddaas kana mamnuucday inay dadku booqdaan inta la og yahay dowladda dalkaas ayaa dadka cilmi baarista sameeyo oo kaliya u ogolaato inay booqdaan jasiiraddaas kuwaasoo iyaguna la duldhigay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay la socdaan dhakhaatiir daweyn kara haddii ay wax noqdaan khubaro arrimaha deegaanka oo ka socday jaamacadda Sydney Australia iyo Selma Mari oo BBC-da qaybta Brazil la hadasha waxa ay sheegeen in jasiiraddan ay samaysantay 11,000 oo sano ka hor taasoo ay keentay inay duurjoog u badan masas ay u tartamaan jasiiraddan hawdka ah ee dhanka xeebta kaga beegan magaalada São Paulo ee dalka Brazil goobta labaad ee dalxiiska ka caagani waa kaydka qarsoon ee kiniisadda Vatican Sacred Archives kaydka qarsoon ee kiniisadda Vaticanka ee dalka Talyaaniga waa mid aan loo ogolayn in dadku ay booqdaan kaydkan oo la sheegay uu ku dhex yaalo dhismo weyn ayaa la aaminsan yahay in halkaasi ay ku kaydsan yihiin dukumeentiyo muhiim ah oo taariikhi ah waxyaabaha la sheegay in halkaasi ay ku kaydsan yihiin waxa ka mid ah waraaqo ay isweydaarsan jireen Vaticanka iyo dadkii caanka ah ee soo maray dunida kuwaasoo ay ka mid yihiin muallifkii caanka ah Wolfgang Amadeus Mozart boqoradii koowaad ee Ingiriiska Adolf Hitler iyo dad kale oo taariikh dheer ku leh dunida xogtaas oo ah mid u khaas ah baadariga madhabta Kaatooliga ayaa ah mid ka caagan dadka adduunka oo aysan arki karin marka ay soo booqanayaan goobtani cilmi baarayaasha arrimaha sayniska ayaa la sheegay inay yihiin dadka kaliya ee dalban kara ogolaansho ay ku galaan goobtaas haddiise loo ogolaado waxa ay ku dhaqmayaan shuruuc adag oo ay ka mid tahay inaanay wax waraaqa kala soo bixi karin kaydka qarsoon waxa kale oo jira shuruuc dhigaysa in iyaga xitaa aanan loo ogolayn inay arkaan waxyaabaha qaar ee goobtaasi yaala kaydka qarsoon ee Vaticanka ayaa sidoo kale ah meel lagu kaydiyay xogo badan oo la xiriira Kaatooliga waxaana la sheegay inay ku kaydsan tahay taariikh gaaraysa ilaa iyo qarnigii 8aad inta badan macluumaadkan ayaa ah kuwa ku kaydsan bakhaaro dhulka hoostiisa ah waxaanay ku fadhiyaan dhul gaaraya 85 kiiloomitir goobta saddexaad ee dalxiiska ka caagan ee barnaamijkeena ku soo qaadanayna waa xarunta lagu kaydiyo midhaha dalagyada ku beeran adduunka sanduuqa midhaha ee dalka Norway waa sanduuq aad u weyn oo uu samaysay sida qaboojiyaha laguna kaydiyo midhaha dalagyada adduunka laga beerto sanduuqan oo yaala gudaha dalka Norway ayaa waxaa hirgeliyay dowladda dalkaasi waana goob lagu ilaaliyo midhaha si haddii ay masiibo ama aafo kale uga dhacdo dunida loo helo kayd midho oo loo laaban karo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku soo waramaya in sanduuqan oo ku yaala jasiiradda Spitsbergen ee ay ku kaydsan yihiin milyan baaldi oo midkiiba ay ku jiraan 100 milyan oo ah midho kala duwan kuwaasoo aad muhiim uga ah dunida waxaana mashruucan la hirgeliyay sanadkii 2008 waxa laga dhisay qalab ay adag tahay inay biyo ama waxyaabo kale ay dibadda ugu yimaadaan kadibna ay waxyeeleeyaan xaruntan looma ogola dadku inay booqdaan waana sababta lagu sheegay si looga baaqsan lahaa waxyeelo soo gaari karta kaydka midhaha sanduuqan waxa ku dhagan sawirrada dhammaan midhaha dalagyada laga beerto caalamka haddii ay ahaan lahayd khudaarta cuntada iyo dhammaan waxyaabaha laga isticmaalo adduunka guudkiisa sanduuqan ayaa loo nashqadeeyay qaab uusan u dumin cimrigiisana uu gaarayo 200 oo sano
waxa uu iska celin karaa wax walba oo ay ka mid yihiin duufaanta, qaraxyada, dhulgariirka iyo waxyaabaha kale ee la midka. midhaha halkan lagu beeray ayaa ka mid ah kuwa laga soo ururiyay dhammaan dalalka caalamka, waxaana dalalka halkaas wax ku kaydsada ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo inta badan wax xidhiidh ah la lahayn caalamka intiisa kale, marka laga reebo dalal dhowr ah oo sida Shiinaha uu ka mid yahay. goobta afraad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayna waa jasiiradda xabaalaha ee Talyaaniga. waa qolalkii dadku ay seexanayeen oo isu bedelay quburo oo baaba'ay. Bofgeliya waa jasiirad yar oo ku taala dalka Talyaaniga una dhaxaysa xeebaha magaalooyinka Venice iyo Lido. goobtan waxay hore u ahayd goob lagu karantiilo dadka qaba cudurka bubonic ee ka dhasha bakteeriyada, waxaana mar la sheegay in lagu karantiilay 160,000 oo qof oo qabay cudurkaas, kuwaasoo markii dambe qaar badan oo ka mid ah ay ku dhinteen jasiiraddaasi. wararka qaar waxay sheegayaan in 50% carrada dhulka jasiiraddaasi ay tahay hadhaaga jirka bini'aadamka, maadaama sida la sheegay meydadka dadkii ku dhintay cudurkaasi ay ku qurmeen dhulkaasi. wargeyska Daily Mail ee Britain ka soo baxa ayaa ku soo waramaya in jasiiraddaas muddo hadda laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumaystihii Talyaanigu oo ahayd xarun lagu kaydiyo dadka qaba xanuunada dhimirka, waxayna taasi keentay in dowladda Talyaanigu ay markii dambe xidho jasiiraddaas Bofgeliya kana mamnuucdo inay dadku booqdaan. goobta shanaad ee ka caagan dalxiisku waa qolka 39aad ee Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamay inuu yahay dal go'doon ah kana go'an dunida inteeda kale ayaa waxa adag in wax badan laga ogaado waxa ka dhex socda. dalkan oo sidiisaba ay adag tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaas iyo waxyaabaha ay qabtaan ayaa qol lagu magacaabo Room 39 waxa la sheegay inuu yahay qol aanan cid loo ogolayn inay gudaha u gasho. wax badan lagama oga qolkan ku yaala magaalada Pyongyang, hase yeeshee dad aqoon u leh ama la soo shaqeeyay xukuumadda dalkaas waxa ay sheegeen in qolkaas uu yahay goob ay si gaar ah ugu kulmaan hogaamiyaha waddankaasi saraakiisha militariga. Ria Chong oo ah sarkaal hore uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang oo u warramay telefishinka CNN ee Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabaha kale ee lagu qabto qolkan 39aad uu muddo ka soo shaqeeyay ay tahay meel lacagta loogu geeyo saraakiisha sarsare ee dalkaasi. dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in qolka 39aad uu yahay mid lagu qabto howlo sharci darro. goobta lixaad ee dalxiiska ka caagan ee barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waa aaga 51aad ee saldhigga qarsoon ee dalka Mareykanka. aaga 52aad ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalkaas oo loo yaqaano Area 51. hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa markii ugu horeysay qirtay jiritaanka goobtaas sanadkii 2013. inta badan goobtan kama soo muuqato khariiradaha goobaha dalka Mareykanka, waxaana la aaminsan yahay in sidaas loo sameeyay sababo amni darteed. goobtan oo qiyaastii 170 kiiloomitir jirta Las Vegas ayaa sanadkii 1958 waxay hay'adda atomikada Mareykanka ka saartay goobaha dadweynuhu ay tagi karaan. waxaa gidaarka goobtan ku hareeraysan ciidamo hubeysan, sidoo kale waxa adag in diyaaradaha ay dul maraan goobtan iyagoo aanan wax fasaxa haysanin. way adag tahay in loo ogaado waxa ka dhex socda xaruntaas, dadkuna marnaba looma ogola inay gudaha u galaan oo waxa gidaarada ku dhagan koronto diri karta qofkii isku daya inuu gudaha u galo goobtaasi. xaruntan waxay u dhowdahay saldhigga military ee Nafta oo ah meel lagu tijaabiyay hubka nukliyeerka Mareykanka intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1990. waxay ku fadhidaa dhul dhan 3 milyan oo hektar. waxay dad badan rumaysan yihiin in dowladda Mareykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan suxuunta duusha oo la rumaysan yahay inay kaxeeyaan noolayaal qalaad oo cirka ka yimid. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah noolayaashaas ay dowladda Mareykanka qabatay kuna hayso xaruntaas Area 51 ee Nafta. Anya Jobson oo wax ka qoray taariikhda saldhiggan ayaa sheegay in goobtaas ay ku rakiban yihiin qalab aad u horumarsan oo dowladda Mareykanka ay u adeegsato howlaha sirdoonka. goobta toddobaad ee dalxiiska ka caagan barnaamijkan noogu dambaysa waa jasiiradda dadka go'doonsan ee Hindiya qowmiyadda Santilia. dadkan ma ahan dad doonaya inay la macaamilaan dadka kale ee adduunka, mar walbana waxa la sheegaa inay dagaal kala hortagaan qof walba oo isku daya inuu soo galo jasiiraddaasi.
dowladda Hindiya ayaa joojisay dhammaan isku day walba oo loogu tagi karo dadkaas kadib markii ay ogaatay khatarta dadkaas ka soo gaari karta waxaana dowladdu ay hagaajisay xayndaabka aanan loo dhaafi karin dadkaasi sanadkii 2006 kalluumaysato isku dayday inuu gudaha u galaan jasiiradaas ayaa la sheegay inay dadkaasi dileen sidoo kale dalxiiso u dhashay Mareykanka oo isku dayay inuu tago jasiiradaas ayay dileen dadka ku nooli goobtaasi dad badan oo isku dayay inay booqdaan goobtaas ayaa waxa iska hor imaad kala hor yimi dadka Santilia lamana oga sida ay u nool yihiin iyo dabeecadahooda